الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده nin masiixiya ayaa u yimid nin caalima masiixigaas oo u dhashay waddanka England ayaa weydiiyey ninkii caalimka ahaa maxay diintiin idinkaga mamnuucday inaad dumarka gacan qaadaan oo salaantaan ninkii caalimka ayaa weydiiyey gacanta ma ku salaami kartaa boqoradda Ingiriiska ninkii masiixiga ayaa ku jawaabay may dadka qaaska ayaa loo ogol yahay inay boqoradu gacan qaadaan oo yacni salaamaan ninkii muslimka ayaa dhahay haddaba dumarkeena islaamka ah waa boqorad oo kaleeto boqoraduna ma gacan qaadaan niman ajnabi ka ah ninkii ayaa su-aal weydiiyey masiixiga caalimka ayuu weydiiyey maxay dumarkiinu isku daboolaan oo yacni xijaabka u qaataan ninkii caalimka ayaa dhoola caddeeyey kadibna wuxuu soo qaaday 2 weel oo macmacaan ku jiro kadib mid ayuu furay midna sidiisii ayuu u daboolnaaday cabaar markii yaaleen ayuu kii dabool qaadnaa qashin ku riday wuxuuna weydiiyey haddii aan ku dhaho labadan macmacaan mid kee qaadan lahayd ninkii masiixiga ayaa ku jawaabay midka daboolan ayaan qaadan lahaa ninkii caalimka ayaa dhahay sidaasi aad u dooratay ayaa allah subxaanahu watacaala dumarkeena xijaabka u amray inay macnaha lagu garto aan lagu dhibin dumarku ilaahay subxaanahu watacaala wuu sharfay wuuna qiimeeyey ninkii gaalka ayaa yidhi allihiina ma i tusin kartaa oo ma awoodaa inaa i tusisid waayo ayaga waxay aaminsan yihiin wax la arko ama la taaban karo ayay caabudaan ninkii muslimka ayaa dhahay fiiri qoraxda ninkii masiixiga ayaa ku yidhi ma fiirin karo falaaraha qoraxda ayaa indhahayga waxyeeleen gaarsiinayaan ninkii caalimka ayaa dhahay haddii aadan arki karin allah wuxuu abuuray sidee u awoodeysaa inaad aragtaa allaha subxaanahu watacaala wax abuuray ugu dambeyntii ninkii masiixiga ayaa maalin marti qaaday ninkii caalimka ahaa ayuu gurigiisii ugu yeedhay kadib wuxuu siiyey canab ninkii gaalka ayaa wuxuu siiyey ninkii caalimka ahaa canab ayuu siiyey markuu canabkii cunay ayuu keenay koob qamri ah ninkii masiixiga ahaa ninkii caalimka ayaa ku yidhi anigu xaaraan ayuu naga yahay khamrigu markaasaa masiixigu weydiiyey sidee ku diideysaa haddii muslimiin aad tihiin khamriga hadda aad cuntay canabka idinka og in khamriga laga sameeyo canabka ninkii caalimka ayaa dhahay gabar makuu joogtaa ninkii masiixiga ayaa yidhi haa way ii joogtaa waan dhalay gabadhaada ma gursan kartaa ayuu weydiiyey caalimkii ninkii masiixiga ku yidhi may ninkii muslimkaa wuxuu yidhi caalimka ahaa subxaana allah gabadhaada hooyadeed waa guursatay iyadoo guursa ma kartid adoo og inay gabadhaadu tahay maxaa yeelay gabadhaadu waxay ka timid xaaskaaga xaggeeda ninkii masiixiga ahaa wuu wareeray kadibna wuxuu garwaaqsaday inay diinta islaamku tahay midda saxda ah kadib towxiidka ayuu qiray oo halkaas ayuu ku islaamay oo diinta ilaahay subxaanahu watacaala ku fahansiiyey walaalaha muslimiinta dhammaan akhbaartan haddii ay kusoo gaarto walaalaha kale muslimiinta ah sii gaarsii oo khayrka iyo wanaagga faafi gabdhahana xijaabka ha qaataan wabilaahi towfiiq